ugu dambeyntiina haddii aad hore u maqashay abwaan Soomaaliyeed oo yidhi Suuldhabaale waa hadal haddana waa si gooniya sanqashaduna waa hadal haddana waa si gooniya wadamada Turkiga iyo Greega qaybo kamid ah ayaa dadka ku nool qaarkood iyaguna waxayna leeyihiin foorida qudheedu waa hadal haddana waa si gooniya bal hadda waxaad qiyaastaa foori haddaad arki jirtay geel lagu caraabiyo ama lagu foofiyo ama lagu waraabiyo hada fooridio caadi loogu wada hadlayo ila daawada dadka haddaba ku nool qaybo kamid ah wadanka Greega iyo Turkiga ayaa iyagu waxay luqad ahaanba u isticmaalaan oo si caadi ah u isticmaalaan fooridaas oo lagu wada hadlo dhulkaasi waa dhul buuraleeya oo markaasi ay adag tahay in dadka tusaale ahaan beeraha ka shaqeynaya kale ay la hadli karaan kuwa guryaha jooga laakiin fooridu meel dheer bay gaadhaa deedna dadkani waxa muddo aad iyo aad u dheer oo sanado aad iyo aad u fara badana fooridaasi ay u isticmaalayeen in markaasi ay ku wada xidhiidhaan sida arkaysaan dhinac walba oo nolosha ah rag iyo dumar waayeel iyo caruur fooridaas la wada maciinsanaya oo dad si caadi loogu wada hadlaa waliba hadal kaliya ma aha iyadoo aad loo kala dheer yahay ayaa fooridaasi lagu sheekaystaa haddaba jabciyada quruumaha ka dhaxaysa imika waxay leedahay luqadaas oo loo yaqaan waliba afshambraadka caruurta Soomaalidu wax kale u yaqaaneen oo af Soomaaliga la jajabiyo oo si maqluuba loogu hadla loo yaqaanay laakiin afshambraadka waxa loo yaqaanaa dhulka Greega iyo Turkiga ka tirsan fooridan lagu wada hadlayo oo dhawaaqii shimbiraha aad iyo aad u shabahda jabciyada quruumaha ka dhaxaysa haddaba imika waxay leedahay warwar aad u weyn baa laga qabaa in telefoonada soo kordhay mobilku ay arintaasi ka dhigaan caado la gooyo cadaan la leedahay oo dadkii iyagoo telefoon wada sitaa oo ku wada hadli karaya haddana day soo foori karaan marka waxa la leeyahay si luqadani aanay u dabar goyn hadda waa luqada foorida garo caruurta loogu dhigo iskuulada dadna si jiilka ka dambeeya ugu sii gudbiyo waxaana imika labadaasi meelood ka tirsan Turkiga iyo Greega oo suurta gashay in caruurtii qaar fara badan oo kamid foorida ay bartaan laakiin waa tii la oran jiray nimco waliba nusqaan leh farsamadan cusub iyo technology-ga soo kordhay waxa uu meesha ka saaraya waxyaabo fara badan oo markii hore ay dadku isticmaali jireen tusaale ahaan wadamada hore u maray reer galbeedka ayaa waxa aad iyo aad looga cawdaa in dadkii imika isarki jiray ee kulmi jiray ee sheekaysan jiray ee asxaabta ahaa in mobilka iyo baraha bulshada lagu wada xiriiray tii meesha ka saareen tusaale ahaan wadanka Britain oo kale ayaa waxa la leeyahay halkii qofka Britishka ama Ingiriiskii berigii hore 6 qof oo asxaab u lahaan jiray imika mid kaliya ayay si joogta u kulmaan baleeyay sababtuna wax kale ma aha intii kale email iyo waxay ku wada xiriirayaan baraha kale bulshada oo marka labadii qof moodayaan inay wada joogaanba war iskuma seegana ama Facebook ha la iska maqlo ama aalad kale ha lagu wada xiriiraa haddaba tan luqada marka aynu soo noqono ayaa imika waxa xoog ay saarayaan labadaasi dawladoodba oo waliba jabciyada quruumaha ka dhaxaysa ay u soo gurmatay ina foorida la gooynin haddaba fooridan waxa ay dhinac kala mid tahay markuu abwaanka Soomaaliyeed lahaa sanqashaduna waa hadal haddana waa si gooniya Suuldhabaalena waa hadal haddana waa si gooniya oo Soomaalidu ay hore u lahayd sanqashaduna waa hadal haddana waa si gooniya Suuldhabaale waa hadal haddana waa si gooniya